kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa warar sugan 24 ku soo dhawaada wararka daafaha caalamka ugu doorka roon waa maalmo Talaata ay ku beegan tahay taariikhdu 21 bisha Abriil sanadka 2020 qodobada aad maanta wararka iyaga aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah ciidamada dawladda oo howlgal xoogan ka fuliyay deegaanka Maxaas ee gobolka Hiiraan ra'iisul wasaare Khayre oo beesha caalamka la kaashanaya xaaladda COVID-19 hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo laga deerinayo xaaladiisa caafimaad haweeney 68 sano jir ah oo laba caruur mataana ku dhashay dalka Nigeria safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya oo dhaleecayn kala duldhacay caburinta ay saxaafadda ku hayso dawladda Soomaaliya iyo xaaladda guud ee COVID-19 Soomaaliya oo aad looga yaaban yahay kadib markii dadka uu soo ridanayo cudurkaasi ay kor u sii dhaafayso 200 oo kiis iyadoona dadka gudaha ku sugan aysan wax war aynan ka haynin in tiro intaasi laeg uu soo ritay cudurka coronavirus iyo dawladda Mareykanka oo horkacaysa dawladaha uu soo ridanayo shacabkooda cudurka coronavirus wararkaasi ayaad ku dhageysan doontaan warka iyaga maanta wararkaasi wararka loo dheeriyana waxaad kaloo ka daalacan kartaa website-ka iyaga oo ah www.wararsugan.com ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa gelinkii hore maanta waxay howlgal ballaaran ay ka sameeyeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan howlgalladan oo ahaa kuwo qorsheysan ayaa waxa lagu baadigoobayay rag hubaysan oo dil qorsheysan ka geystay gudaha degmadaasi saraakiisha horkacaysa baaritaankani ayaa sheegtay in kooxda fulisay dilka ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana ay ku raad joogaan sida ay hadalka u dhigeen Al-Shabaab ayaa inta badan weerar gaadma ka fuliya gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo safiirada dalalka saaxiibka la iyo wakiilada hay'adaha caalamiga ee dalka ku sugan oo yeeshay kulan dhanka mareegtada internetka ah ayaa ka wada hadlay xaaladda dalku uu marayo gaar ahaan cudurka coronavirus oo farabaan ku haya gudaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa mas'uuliyiinta kulanka ka qaybta ahaa waxa uu ku wargeliyay in dawladda Soomaaliya ay doonayso in dhammaan barnaamijyadii qorsheysnaa ee dawladda lagu caawin lahaa in loo leexiyo qabashada cudurka halista ah ee coronavirus in lagu caawiyo dadka iyaguna u nugul loogana hortago safmarka cudurkaasi ah aad walaalayaal ka warqabtaan adduunyadu waxa ay weli la daaladhacaysaa sidii loogu guulaysan lahaa cudurka loo yaqaan COVID-19 weli waxaa muuqata inay sii kordhayso tirada dadka u dhintay cudurkan mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in la joogo xilligii caawinta ugu baahida badneed loo qabay ayna muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyadaha badan dawlad goboleedyada dalka ka jira in loo dhiso min hal cusbitaal oo awood u leh in uu la tacaalo bukaanada uu haleelay COVID-19 ra'iisul wasaaraha oo beesha caalamka ugu mahadceliyay taageerada joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaba ay la garab taagan yihiin ayaa cadeeyay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed dawladaha ay saaxiibka yihiin iyo hay'adaha caalamiga ah in ay gacan weyn ka geystaan xaalad walba oo la soo gudboonaata gudaha dalka Soomaaliya qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaya saraakiil dawladda ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ninka lagu magacaabo Kim Jong Un uu ku sugan yahay xaalad halis ah kadib markii qalliin looga sameeyay dhanka iyo wadnaha telefishinka CNN ayaa sargaal sare oo Mareykan ah arintani xog ogaal u ahaa ka soo xigtay in Washington ay isha ku hayso xogta rasmiga ah iyo sirta ka dambaysa xaaladda guud ee Kim Jong Mr Kim ayaa la sheegay in uu seegay dabaaldega sanad guurada dhalashada awowgiisa oo ku beegneyd 15 bisha Abriil taasoo dhalisay xanuun ku saabsan xaaladiisa caafimaad waxaa kulanka dawladda lagu arkayay 4 maalin ka hor xilligaasi sarkaal kale oo la hadlay CNN ayaa sheegay in ay jiraan walaacyo ku saabsan xaaladda caafimaad ee Kim balse ay tahay in la qiimeeyo heerka ay la eg tahay wargeyska online-ka ah ee lagu magacaabo Daily NK oo fadhigiisu yahay Kuuriyada Koonfureed ayna leeyihiin mucaaradka Pyongyang ayaa wariyay in Kim lagu sameeyay qalliin wadnaha ah 12 bisha Abriil Kim ayaa qalliinka wadnaha lagu sameeyay sabab la xiriira sigaar cabis xad dhaaf ah iyo cayilkiisa iyo sidoo kale shaqada oo ka tambadan sida uu wariyay wargeyska Daily NK kaasoo intaasi ku daraya in lagu daweynayo villa ku taala magaalada Hayeongsan
cisbitaalka magaalada Lagos ayaa shaaciyay in haweeney 68 sano jir ah oo mataana ay ku dhashay cisbitaalkaasi. madaxa cisbitaalka Professor Wasiu Adeyemo ayaa shaaciyay arrinta maalintii Axadda ahayd. xaaladda hooyada iyo ilmaha aad ay u wanaagsan tahay, waxayna sugayeen familkani in carruur ay dhalaan muddo iminka laga joogo 43 sano. sidaasina waxa uu ku sii baahiyey barta Twitterka. faahfaahin dheeriya oo wararka iminka aad dhageysanaysaan ka badan waxaad ka helin kartaa website-ka iyaga www.wararsugan.com. safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya u fadhiya Nicholas Berlanga ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kala hadlay caburinta ay xukuumaddiisu ay ku hayso suxufiyiinta Soomaaliyeed. safiirka iyo ra'iisul wasaaraha ayaa kulankaasi ku dhexmaray qaab online ah, waxaana Danjire Nicholas kula taliyay xukuumadda Soomaaliya in aysan xal ahaynin caburinta ay ku hayso kuwii xaqiiqda jirta ee bulshada u soo gudbiya. qoraal Nicholas Berlanga safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya uu soo bandhigay bartiisa Twitterka kadib kulankii dhexmariyay wakiilada beesha caalamka iyo ra'iisul wasaare Kheyre ayuu ku sheegay in hadallada xanafta leh ee saxaafadda ay yihiin qayb ka mid ah dimuqraadiyadda. caburintu waa qayb ka mid ah hannaanka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalku ma noqon karo musiibo oo kale haddii suxufiyiintu ay dayacaan macluumaadka. xabsi ama xiritaanku xal ma ahan, ayuu yidhi Mr. Nicholas. waa hagaag dhegaystayaal, wararka sheegaya in COVID-19 dalka Soomaaliya in uu faraba'an uu ku hayo ayaa dadka intooda badan hadalladaasi waxay yihiin kuwa ismaandhaafsan. dowladda ayaa marba marka ka dambaysa waxay shaacinaysaa kiisas hor leh oo uu soo ridanayo cudurka coronavirus. sidoo kale dalka Mareykanka ayaa majaraha u haya iminka wadamada uu soo ridanayo dadka qaba cudurka coronavirus. guud ahaan dalka Mareykanka 800,000 ayuu soo ritay, waxaana wadanka labaad iminka uu kaalinta labaad soo caga dhigtay dalka Spain oo isaguna uu soo ridanayo 205,000 oo ruux. Talyaaniga ayaa kaalinta saddexaad weli taagan 183,000 ayuu marayaa. Faransiiskana waxa uu ku jiraa kaalmaha afraad 156. Germany 148 ayuu Jarmalka marayaa. Ingiriiskana waxa uu marayaa 130, halka Turkigana uu gaaray 95. Iiraan 84, Shiinaha 83 kama aysan dhaqaaqin kadib markii uu ka yaraaday faafitaanka cudurkaasi. Ruushia ayaa 52 ah, Belgiumka 40, Brazil 40, Canada 38, Netherland 34,000 ayay maraysaa. cudurkan ayaa waxa uu yahay mid inta badan iminka dadka ay la qabsanayaan, iyadoona dowladaha intooda badan ay sheegayaan dadku in ay shaqooyinkooda iyo isu socodkooda ay dib u bilaabi doonaan. waxayna sheegeen in ay u tabar waayeen in cudurkani daawadiisa ama ka hortagiisa ama wax uun markaa wax ka bedeli kara xanuunkani in ay la yimaadaan, iyadoona marka daawooyin la baarayo ay u baahan tahay in waqti dheer la siiyo si markaasi looga baaraandego. dowladda Britain sidoo kale waxay sheegaysaa in dadka ka bogsooday cudurka coronavirus dhiigooda ay isticmaali doonaan, walow aysan shaacinin qaabka ay u isticmaali doonaan, maqaab baaritaana mise sidoo kale dadka ayaa la siin karaa oo dhiigoodu waa ay qaybin karaan ayay ula jeedaan. wararkaasi iyo warar kaloo dheeriyaba waxaad kala socon doontaan wararsugan.com iyo sidoo kale barteena YouTube-ka wararsugan 24. haddaad ku cusub tahay janaalkan subscribe dhe si aad ula socoto warar badan oo ka mid a qaybaha gudaha dalka Soomaaliya iyo wararka dibadda. sidoo kale website-ka iyaga waxaad ka heli doontaa musalsalo iyo filamaan iyo waxyaabaha arrimaha bulshada quseeya. intaa ku kulmi doono warbixinta xigta sidaa iyo nabadgelyo.